ma doorasho samayn karaa haddii gabar la dulmiyey oo sarkaalada ahayd oo ciidanka nabadsugiida ka tirsanayd oo si dulmiya intii la yidhi qolaa shabaab baa dilay oo war ma aanaan dilin dhaqanka dhan sida ma ahayn annagu haddaan dila maalintii waan sheegan lahay ra-iisul wasaaruhu uu go-aan ka gaari waayo war maxkamada loo diro sidaa hala yalo dabada laga haysto ma waxaad u malaynaysaa doorashadu qaban karay ha qaadato mas-uuliyaddaasi midda ikraamna waxay nasli u noqonaysaa dulmi badan oo la geystay ay sabab u tahay inay kashifanto oo bannaanka ay timaado middan kale ee ku saabsan in kiiskaas siduu yahay loo qaadana ra-iisul wasaaraha tijaaba u tahay isaga daftarkiisa waxaan odhan lahaa ra-iisul wasaarow si cad baa mas-uuliyadda ummaddani ay kuugu dhiibtay oo laguugu ogyahay oo kugula shaqaynaynahay shaqada aad leedahay intaad qabato diyaar baana waana kuu garab taaganahay qofka la dulmiyeyna cadaaladda u raadi gabadha dhibanna kiiskeeda maxkamaddii lahayd ee ciidanku ha qaado doorashaduna ha noqoto mid xalaal ah oo aad qabato oo siday tahay loo qabto oo aanay noqonin doorasho mindi daabkeeda la haysto oo la isla haysto ee waxayla tahay inaad go-aan adeeg intaad qaadato shaqada aan leenahay sideeda aad fuliso golaha isugu yeed wixii caqabadee kugu timaado aan ka Excellencies, ladies and gentlemen, the COVID-19 health pandemic has truly challenged the world in a way most never predicted. Across the world, people have lost their lives, livelihoods, and are tasked with enormous challenge of rebuilding their lives, communities, and countries during a very uncertain period in human history. On Ikram Tahlil's appearance, which, as you may have heard, has attracted a lot of public interest, it is my principled position that credible investigation of this case is necessary, and that all obstructions to getting justice for Ikram and her family must be removed. I thank the UN and the members of the international community for the firm decision in demanding credible investigation too.